الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحين سوقعني السبب الثاني من الأسباب الخاصة. وحين سوقنا بشهر رمضان صوم كيدو إنو كواجب لبا نوع أسبابه. نوع كواد وحين كل شيء الأسباب العامة waxaynuna ka dhignay saddex sababood: xukunka qaadiga iyo shacbaan oo la dhameystirto iyo dad aad u tiro badan oo ka warramay inay bishii arkeen. nooca labaad ee asbaabta ah waxaynu niri waa asbaabta keenta bisha ramadaan inay ku waajibto dadka qaarkood, dadka kalena aanay ku waajibin. waxaynu sheegnay manaadka qaybta hore iyo waxa lagu xidhayaa inuu yahay aragtida bisha iyo dhamaystirka shacbaan sodonkeeda dhamaystiro. nooca labaadna waxaynu niri manaadkeedu waxa weeye in la og yahay ama mala qaalib ah uu jiro in bishii ay cirka joogto habeenka bishu 29 ay dhamaysatay shacbaan. sababta koowaad waa sheegnay markaa. waxaanu niri qofka bisha arka ee bishii aragtidiisana aan lagu xukumin oo qaadigii xukun uusan ka gaadhin waa sababka koowaad. isaga waa ku waajibaysaa. cidda uu isagu u sheego ma ku waajibaysaana faahfaahin baynu gelinay, waa ka soo warrannay. wuxuu markaa sababu thaani, sababka labaadi ikmaalu shacbaana 30. shacbaan in la dhammaystiro 30 weeye. fii xaqi man mid xaqiisa ra'aa hilaala shacbaana bisha shacbaan arkay waxdahu keligii aw ictaqada ama rumaystay ama rumeeyey sidqa man mid runahaanshihiisa ra'aa arkay hilaala shacbaana waxdahu bisha shacbaan keligii arkay. sababka labaadi qofbaa bishii shacbaan keligii arkay. bishii shacbaan hadda bishanaynu inoo bilatay caawa labada ah buu keligii isagu arkay. dadkii kale markaa iyaga shacbaan uma soo gelin, isaga laakiin maadaamuu arkay warkiisiina aan la qaadan, shacbaan wuxuu keligii ayay u soo gashay. hadhow markaa dadkii hadday markuu isagu 30 dhammaystirto dadkiina weli 29 ay u tahay, haddii dadku bishii ramadaan ay arki waayaan iyagu maxay dhammaystiranayaan 30kii shacbaan. isaga markaa markay 30ka iyagu dhammaystiranayaan isaga maxay u noqonaysaa 31 bishu ma noqoto. sidaa awgeeda bishii ramadaan buu bilaabayaa isagu. bishii ramadaan buu dadka ka hor bilaabayaa isagu soomkeedii. markaa soomkiibaa wuxuu u soo gelayaa keligii, dadka kalena umuusan soo gelin soomkii. waxaa kale oo soomku ula soo gelayaa ciddii isaga rumaysata. tafsiilkaynu soo sheegnay ee 4 xaaladoodan xalay ka soo warrannay iyadoo lagu dhisayo cid walba isaga rumaysata. hadduu cadli ahaa qof walba uu sheegay oo cadaaladiisa ogaa, haddii kale sidaanu sheegnay buu loo qaadanaya. sababka saddexaad wuxuu yidhi asababu athaalithu xusuulul amaarati, calaamad inay xasisho calaa dukhuuli ramadaana bishii ramadaan inay soo gashay ayaa calaamadi ku xasishay. waa ka samaaci sawti lmadaafici, madfacyada codka iyo dhawaqooda in la maqlo. wa ru'yati alqanaadiili, faynuusyo in la arko almucallaqati lagu xidhay fi lma'aadini minaarado. walow tufi'at haddii la demiyo alqanaadiilu, ama walow tufi'at haba la demiyo alqanaadiilu faynuusyada linaxwi shakin shaki bisha laga shakiye awgeeda, ama linaxwi shakin shaki laga shakiye awgeeda fi ru'yati aragtida. uma dabadeetana uuqidat ha la siraado liljasmi bihaa goyn la gooye awgeeda. walowda markaa jumla istinaafiya ka dhig. walow tufi'at haddii waxaa tirahdaa la demiyo alqanaadiilu faynuusyada linaxwi shakin shaki awgiisa oo fi ru'yati aragtidii laga shakisan yahay. uma dabadeetana uuqidat haddii loo siraado liljasmi bihaa goyn la gooye awgeeda wajaba waxaa waajibaya tajdiidu niyati, niyada in la cusboonaysiiyo. calaaman mid buu ku waajibayaa calima ogaa bitaf'iha in la demiyey duuna man lam yaclam bihi, qofkaan ogayn in la demiyey kuma waajibayso niyadii inuu cusboonaysiiyo. masaladina waa maxay? bisha waxaa lagu soomayaa ramadaanta oo ciddii calaamadahan aragtaa ay ugu soo gelaysaa
aragtida calaamado la isla yaqaano inay rabadaantu ku soo gasho. aragtidaasi marka waagii hore waxa la sameyn jiray marka rabadaantu soo galayso dhowr madfac baa la ridi jiray. madfacaasi marka dadka magaalada iyo wixii ka agdhow oo dhan ba waxay ku dareemi jireen madfaca codkiisa inay rabadaantii soo gashay. waxa la sameyn jiray minaaradaha masaajidda ba faynuuso inta la suro faynuusada la siraadi jiray iyagoo fara badan. waxa laga yaabaa marka qof magaalada ba ka durugsan oo dadka dawaaxida iyo hareeraha magaalada iyo baadiyaha magaalada ka agdhow oo dhan degani faynuusadaasi siraadka la siraado inay arki jireen. waxay ku fahmayaan marka maadaama rabadaan la sugayay inay soo gasho codkan madfacaha ee dhacay iyo faynuuska la siraadee uu arkay ba waxay ku dareemi jireen bishii ramadaan in la arkay. qofku markuu arko faynuuska la siraaday ama uu maqlo madfaca codkiisu dhacay inuu bishii ramadaan sooma waa ku waajib weeye. waxayna ku waajibaysaa ciddii aragta ama maqasha ee dadka ka agdhow ah. laakiin ciddii meelaha ka agdhow aan iyagu markaa maqalin arkinna haddaanay soomin dambi ka qaadi maayaan. laakiin dadka hadday u soo gashay hadhow maalinka inay soo qalleeyaan waa laga doonaya. marka hadda waayahan inuu joogno lama sameeyo calaamadahan oo ma badna. magaalada Maka waxaa lagu sameeyaa waayahan dambe burji weyn oo burji saacad la yiraahdo dabaq aad u weyn oo dadka xajiya ama umraysta ba arkay burji saacad la yiraahdo xaramkan waxba u jirin ba waxay ka daaraan nal cagaar ah oo cirka u baxaya. marka meel fog adigoo joogo oo yani 100 kilomitir 70-60 kilomitir wax u dhow Maka adigoo u jira ayaad arkaysaa bahalkii oo siraadan. munaasabadaha bay markaa u daaraan kaasoo kale marka calaamadahan uu soo galaya. qofkii Maka ka agdhow ee isgaarsiinna aan haysan ama internet aan u shaqaynaynin oo kale oo baadiyaha Maka u dhow degan hadduu calaamada arko wuu ku soomaya calaamadaas inay soo gashay bana cadeyn iyo calaamadu ta. waaye wuxuu yiri masalada dambe ah walaw tufi'atil qanaadilu waxa dhici karaysa masalo mararka qaar koodna dhici jirtay. rabadaantii waxa dhacday waxa la yiri waa la arkay kadibna faynuusadii baa la siraaday kadib baa laga shakiyay haddana markaasaa la damiyay. markaasaa markii shakigii kadib baa waxa la goostay inay rabadaan tahay oo way caddaatay inay rabadaan tahay kadib baa dib loo siraaday. dadkii magaalada joogay iyagu warkan isdhex maraya ee waa la arkay waa laga shakiyay haddana waa caddaatay iyagu waa og yihiin. laakiin ninkan miyiga ama hareeraha magaalada jooga ee warka aan la soconin ee markii hore arkay faynuuska la daaray haddana faynuusadana lama demin jirin ilaa waagu ka baryayo. faynuuskan la demiyay macnahu tilmaamaya waa maxay rabadaantii waa laga noqday weeye. qofkii markuu arkay culimadu waxay ka hadleen haddii dib loo demiyo haddana la daaro oo la siraado niyadii ka waran ila niyadii shaki baa soo galaya. qofku markii la siraaday wuxuu niyeystay bari inuu soomayo waa la demiyay maxaa galay shaki ah talow rabadaantii miyaa laga noqday niyadii baa markaa meesha ku burtay. haddana mar labaad baa la siraaday maxaa laga doonayaa niyadii inuu cusboonaysiiyo. niyadii hore ee siraadkii hore uu ku niyeystay niyadii hore siraadkii hore ku niyeystay waxa la yiraahdo waa waxba laga soo qaadi maayo. doctor waaye su-aasha doctorka kadib su-aalaha dib baynu dhigaynaa. doctorka un baynu maadaama aynan iclaanka bixin uga jawaabaynaa. maytaada waa ka jawaabaynaa. waaye badiil waxaa noqonaya de wixii isgaarsiin aynu haysanno. hadda internet baa la isticmaalayaa facebookyaa lagu jira idaacadaha la dhagaysanayaa mobilkii baa lagu wada hadlayaa masaajidii oo dhan baa meel walba marka idinka arkay rabadaantii tuulo walba culimadii joogtay baa soo hadlaysa wax ma la arkay baa leeyahay waxaasaa badiilkii inaga hadda inoo noqonaya oo lagu soomaya. طيب laakiin tan masalada waxa meesha loogu keenay uun maadaama ay jiri jirtay dhicna karto inay haddana meelaha qaarkood ka jirto saasun baa loo keenay. ilaa hadda waxaa jira meelaha qaarkood madfacyadii ilaa hadda meelaha qaarkood la ridaa jira caalamka. طيب sababta afraad wuxuu yiri asbabu raabicu xukmul muhakkami birru'yati waxa uu ku soo galaa rabadaanku xukmul muhakkami qofkii xakamka iyo qaadiga laga dhigtay xukumka uu rido
بالرؤية أركتي وكحكميه أو أمس بعلمه أقالكيس وكحكميه وحون أقصه قليا في حق من مد حقي حكمه حاكم كاركتي وديبتي مثل هذا حكم كمرك اللي تشوفه ذاتك وحكمه ولا بالنوع وقاضي يا محكم قاضيه وانك الدولة وحديبته إلا مقعابه أما قاضي لما يسترنها هذا أما قاضي ضرورها هذا محكم كوحا اللي يرهدا قفك ضدك إسولي مادان يرهدان هبلونا كلا حكم سيدا هذا محكمة دهان وداددو أي ردانا تقانان وكذا إيجا محكمين باللي يرهدا حكام إيو قضاة فقه إيو مصطلحات كيسة لقوا ما يرهدو waxay markaa culimadu isweydiiyeen masaladii maadaama xukum gali karayo oo qaadiba uu xukmin karayo qaadiga qofkii booskiisa gali jiray ee muxakkimka ahaa ee wixii qaadi xukmin jiray isaguna xukmin jiray ma loo dhiiban karaa ramadaanta iyo xukumkeedii oo ma la oran karaya hebel iyo hebel iyo hebelow waxaad noo xukuntaan ramadaantii inay soo gashay iyo inay baxday bishii inay soo gashay iyo inay baxday xukunkii ma loo dhiiban karaya haaba yiraahdeen waayahay markay isu yimaadaan oo ay xukumkii ridaan xukumkaasi yuu qabanaya xukumka qaadigu yuu qaban jiray dadka oo dhan mar hadduu qaadi xukum rido dadka oo dhan buu qabanaya oo ku soomaya laakiin ninkan isagu qaadiga dawladeed aan ahayn ee dad uun tuulada dadka degan ama magaalada degan ama dhowr qof ay yiraahdeen idinkaanu idin dhiibanay hawsha xukumka ay ridaan wuxuu ku dhacayaa iyaga iyo cidii wax u dhiibatay iyaga iyo عدي وحديبتي سيدا أوجد بقى سبب كان محل جريه قضب كان أسبابته جاركة يعني رمضان تودتك قارك دو واجبته وفهمتين صوما هذا علماء مساجد السقوط مع ده هدي عن عدبه وحديبنا هذا الكود ودتك كموذ واجبين أيوه وحكوا واجب يساو كريه هذا تذكر رميستان بدنا هذا علماء كلسوني على قوة سيدا أوجد مركا يريان ومساجد كنا هديان تذكر ولا ولا صومان ما دام كلسوني لقوا قوة لكن هذا بعدين وصاب حقف يريه هذا ورانو وذاك قابك وحوض كم كلسوني لقوم خصبيه لما أورانيو وحكم دولة وكلاء قاضو لقوم خصبيه هدي أنو نحن باسكي محكمين تيجوا عنا ده مجال دورنا حكم وما وده ديبان يجا مجال دورنا دور كشيخ مساجد كسوفر يستي يجوا حكمك وما ديبان سيدا أوجد يجوا مرة والباسكي قال يا وام محي باسكي أها قفك عادي جا وكور رما إنه بشارك وكلاء يجوا نواون معدلين تتكاسون بي iyo u dhaxayaan qofkii soo arkay iyo warraadinta iyo inta soo bay u dhaxayaan boos qaadi iyo boos muxakkimtoona kuma jiraan tayib muxakkimkuna cidii isaga xukunka u dhiibatay uu buu qabtaa tayib asbab al-khamis laakiin meelaha qaarkood waxa laga yaabaa in hay'adaha muslimiinta waliba gaar ahaan galbeedka ku badanta waxa laga yaabaa majaalista muslimiinta iyo hay'adkooda iyo maraakistooda iyo masaajidda in dadka meesha degan ay iyagu uba xil saartaan oo yiraahdaan hawlaha noogu igmatiin bay kamid yihiin hadii marka sidaas oo kale loogu xil saaro waa qaban karayaan hawsha cidii wuxuu saarateena inay ku dhaqmaan ayaa waajib ku noqonaysa sababka shanaad wuxuu yiri xisaabul xaasibi qofka wax xisaabiya falakiga ah xisaabtiisa binisbati lahu isaga marka loo eego haduu wax xisaabsado iyo waliman saddaqahu قفك الرميستي مرك الله أجو وهو حسابيهننا من يعتمد القمر وقفك ضيح عسكنية في تقدير سيره سعد كيسة كان قنتيسة وعسكنية يميره دجو طيب هدي قف لك وحساب صده ومعلمه يسوق جيسته يقرح ضيح سعد كيسة يسوق جيسته كدبنا يوصل بحضه منازشي وضيح دجيي منازيش وداي حدقي أي وقصوا بحذا إني حل جن أما عاو أي نقطي رمضان تيني سوق ليسو وبشي رمضان إن عرك شوكته علم أما ظني بأوقابه وحنولا النهاي عادينا ويكوسو جلسة عيد والبو حكم عيد والبو كرميستنا وكوسو جلسة مركا قفك حسابيها فلكي جاء إسجا صومك وكو واجبية وهدو حساب صدو تكون أنا أرك السبب السادس سبب كاللحادي تنجيم المنجم قفك حدقيها حدقنتيسا وبالنسبة له إساق مرك الله رأيه ولمن صدقه عدي إساق رميسته وهو حدقيه هنا من يرى وقفك أركا أن أول الشهر بشبه وقيده يكون إنه نقنيه عند ظهور النجم من النجوم حدقها كم يدا سو بحتان كيسا حدقها بالباسوب بحي بشي واسوق شيء قفك سيدا عسكدا حدقية ليره هذا حدقنتنا
maray bannaan tahay iyo maraysan bannaanaynba waa jirtaa meeshani meelaha ay bannaan tahay ee loo adeegsan karo ayay ka mid tahay ayib haddaba hadduu qofku falaki yahay ama xaasib ama munajim iyo xidigiye uu yahay oo ay markaa xidigintiisii iyo xisaabtiisii ugu soo baxdo in bishii ramadaan ay soo gashay waxaa waajib ku noqonaysa inuu soomo dadkuba yaanay soomine waajib bay ku noqonaysaa waxay kaloo waajib ku noqonaysaa cid walba oo kalsooni ku qabta hadalka uu leeyahay iyo warka uu yidhaahdo cid walba oo kalsooni ku qabta ayib sababta toddobaad waa dhannu dukhuuli ramadaana dhannu in loo maleeyo dukhuuli ramadaana marka halkaa hore waxaad ka soo fahantay xisaabaha iyo kalandarrada iyo falakiyiinta warkooda inuusan ramadaantu ku soo gelinin xisaabta inaysan ramadaantu ku soo gelinin ayaa sidaa ka fahantay iyo kalandarka inoo dhegan ee mar walba ay waajib tahay daruurina tahay bisha in la raadiyo aragtina la keeno yacni dadkoo dhan uguma waajibto haddiise ay dhacdo xaakimkii ama qaadiga inuu cuskado oo uu isagu yahay xaakim ku qanacsan bishu inay ku soo gasho xisaabta oo haddii xisaabta marka laysu geeyo ay soo baxdo bishii caawa waa joogtaa sidaasi ay sax tahay oo sidaa uu ku xukumo dadkoo dhan waajib bay ku noqonaysaa horena waa usoo sheegnoo maxaynu nidhi xukmu lxaakimi yarfacu lkhilaaf xaakimku hadduu wax xukmiyo khilaafku meesha waa inuu ka baxaa la rabaa oo warkaa qaadiga iyo warkaa xaakimka baa la wada qaadanaya ayib sababka toddobaad wuxuu yidhi dhannu dukhuuli ramadaana dhannu waa in loo maleeyo dukhuuli ramadaana ramadaan inay soo gashay bilijtihaadi ijtihaad iyo dadaal uu qofku sameeyey cinda alijtibaahi marka ay dheeh gasho waana bian yacjiza qofku inuu ka caajizo can ilbayinati ishtibaaha iyo dhehgalkaasi inuu ka caajiso awoodi waayo can ilbayinati caddayn iyo waaru'yati aragti ka asiirin waa qof qafaalah oo kale wa maxbuusin qof la xidhay fii mawdicin mudlim ka asiirin qof la qafaashay iyo wa maxbuusin mid lagu xidhay fii mawdicin mudlimin meel mugdi ah lagu xidhay iyo wa ahli naaxiyatin dad meel degan oo xadiidun uu dhow yahay cahdigoodu iyo waqtigoodu bilislaami islaamka walahu axwaalun axwaal buuna leeyahay sababka toddobaad ee ugu dambeeya ee keena bisha ramadaan inay dadka qaarkii ku waajibtaa waa in qofku u maleeyo ama cidda meeshaas degan ay u maleeyaan bishii ramadaan inay soo gashay malahaasina uu ku dhisan yahay oo uu cuskan yahay ijtihaaday sameeyeen taxari dadaal iyo baarbaaritaan ay sameeyeen baarbaaritaanka iyo dadaalkaasna uu keenay inay ka dheeh gashay bishii aragtideedii baa sidii caadiga ahayda la yaqaana iyo qaababkii loo arki jiray bay awoodi waayeen inay u raadiyaan taasaa markaa waxay keentay inay ka dheeh gasho markaasuu wuxuu kugu tusaaleeyey ka asiirin waa asiirka waxaa la yidhaahdaa qofka muslimka ah ee gaaladu qafaalato asiir baa la yidhaahdaa qofka muslimka ah ee muslim u xidhanna maxbuus baa la yidhaahdaa asiir lama yidhaahdo muslimkuna muslimka mar walba inuu u xidhnaado sharci ma aha diinna ma aha meelaha qaarkood unbay diinta ogasha xidhniinkuna sideedaba waa tacsiir iyo cuquuba weeye tacsiirtaa iyo cuquubadaana mar walba qofka muslimka asal maaha in cuquubo lagu rido waa wax asalka ka baxsan qofka muslimkahay mar waa bini aadam oo waa kareemaysan yahay marna waa muslim oo waxaa usii dheer karaamo dheeraad ah sidaa awgeeda inaan wax cuquubaa qofka lagu ridininba asal ah hadday keensado markaa wax cuquuba lagu ridayo isaga laftarkiisabaa shareecadu waxay dejisay qaabka loogu ridayo cidda ku ridi karaysa inta lagu ridayo hortaa bannaan ma aha asiir marka waxaa la yidhahdaa qofka gaaladu qabsato maxbuusna waa qofka meel uun lagu xidho xataa haddii la doono qof waalidkii guri ku xidhan ha noqdo oo kale ama qof dowladii xidhatay oo meel ku xidhatay ha noqdo ayib wa maxbuusin fii mawdicin mudlimin qofka lagu xidho meel mugdi ah baa iyana u tusaale ah qofka markaa xidhan ee dee aan dabadda u bixi karaynin ee bisha raadsan karaynin cid uu imanayso odhanaysa hadduu meel dad muslimiina joogaanba waaba laga yaabaa de inuu ogaado laakiin hadduuba gaala xidhatay cid uu imanayso le rabadaan baa soo gashay iyo ma soo gelinna aanay jirinin dadka muslimiinta ee jeerasha gaaladoo kale ku xidhan ah ama kuwii muslimiinta ee xidhay laftarkooduba kuwo bilaa baraka ah oo aan rabadaan iyo salaatoodna u sheegeen ay yihiin qofkaasoo kale aragtidiina waa ka caajisay oo ma awoodo caddayn inuu si un loogu caddeeyo cid u timaado loo sheegana
ما أوده وحو مقليو أو أما مدفعها أما وحويان تراويحها أما عيد مساجد كقرنا واقضية وحسنا متشرا تيفي إذا عدنا ما هيو وحو قفك كو أجاده مركان رمضان متشرو قفك سو كله وحكته كشيء وقال كي وقال لها بشهر رمضان محل قرب مركا إنه سمايو وإنه ددال سمايو كدعي ما يصير رمضان كي ما دام ذن أجان بكرينين مسوا مسد الأوران مايو دينته إنه مرنا وانا حريص مرنا وتكليفية مشاقين دينته نسيد إذا بقفكم مرة دو عقلي يسقبه تكليفه كما دعوه مشاقين تن لينقوم مشاقين إنه عبادة يسنو مر بهدي عقلي جا قتشوه مرنا كادعي ما يسو وفهمتين سوما سيدا أوجد محل يجري قفكي سلادة تكن كرواية استاجي كرواية ما هسكت يا سلادة ليجري يا ما يهفريستو هدو فردي كعاج سمحال يجري هسكت يا سلادة ما يهوس يحدو هدو سحشدي حتى اسكور رجروجي كروايو أو أودي كرواية إنه ماذا حدا قاتشية قعنت حدا قاتشية حبني صورهم بقى تاجينهين ما حاسمين يا سلادة ما كده عيسى ما يكدعي ما يسو حربها يبالشها بركروجي يا بالجري حربها يبالشها سركروجي يا وحنوني سنة إنه تاجين حربه كرو قاضية وسوفورين يا ركوع بني سنة كربو قاضية اعتدال بني سنة هي حربيه لفتر كودي هدور دقاتين كروايو لكن عقل جيسي وقبو أي شو وعقل جيسي شوجو ما كده عيسى بالجري سرادي ما يكدعي ما يسو عقله كتكن يا بالي عقله كني سنة هذا وين تاجنا هاي هذا وين ركوع سنة هاي هذا وحمان آخرين يا هذا وين سلام نقصدي ساسورنا يا diinteenu marka inta ay naxariistahay baa dad fara badan ku kadsoomaan laakiin marar fara badan diinteenu inay iltizaam dhammaystiran tahay iyo mashaqo aan qofku mar aqligiisa haduu qaba aan ka dhacaynin waa la moogyahay naxariista ilaahay marka in lagu kadsoonaado oo waajibaadka iyo takliifaadka laga kadsoonaado ma aha mid waa fahanteen Soomaa waa dhaxdaasan masaajidkan waxaan kaga warramay masalo qofku haduu salaada ka tago oo loo fareeyo ما سوق الله ينايا مسوا كذا عيسى وحن العلماء المسلمين تسجاشن يسجال يبيع سجال وحي قبان سجاشن يسجال يبيع سجال هذا النمبر يرمى أهل سوء وحي قبان قفكو هدو صلاة لو أفرتن سنة صلاة هدي اللي يقولي هي أفرتن كاسر هذا تكدع عمايان وإنه سوق الله يلقدونيه يسجل نوت الله شعب الغادر وحل كافر يا مهما سوماليين يفايدي وحي سومالي أورنجرتي واجي هراء نسال هذه كتكتي صلاة كتكتي أما قوم مكو قدش أما قال لك قدش أما قوم مكو قدش صلاة كاتكتي أما قال لك قدش أما قوم ما أتك قوم يسوع كقوم ما يسوع كقدش فهمت سوما ركبان مركا واجي مساجد كسكهلا دين توان حريص سيدا محلولي سيدا إن لي هذا ما تطبع صلاة كعرية والواجب إلهي كساري وي نين كان واجب كإلهي ساري كعرية تمركي هربا نسي في جيو يسي عرية وها فهمت سوما نين تارك صلاة وبنان كاتشوجا هذين أتقنه وأن صلاة بتوكن مركز سوق كلا يسقى وأود برينا إننا يوربل هرت هذا السوق البين ورانا إننا وقبل لابي منا هذا الكائن تهرنا وكهربنا لكن نين مسجد كتوكنية وأهل الصلاة وخير وناقو سوق علي وولي بالعبادة رمضان مركز أهي واجبك إلهي كلها إن لا شيء دين تكملتها فهمت سوما دين تمركز سيدا مسيرنا نفتر كذا هذا صلاة لتوكنية بنيمان سيدا سوق كلا نقضي حنوسنا يو شركي سقارنا دقاقة يو فالي كل عاي أنا قرابنا هاي بنمسيرنا نفتر كذا قلدي هيس وشاقي قلدي هيس قاركود ومريها دكتور وحناقين من كان مرفوع القلم كهوا سلاد لقدوني يا كوري هو مرفوع القلم نكن عقل يسوى قبا وحول بيسوى قبو كلية دتك واكلا قرنية كلية فالك باكل عاي من هذا اللي كرايو حبنيه شركنا قاربو صندقاتين كراين وشيفا وصحوا مرك الله قدرت كان كلي أردي لا ممدحها لكن سيدا أويه واحد شرقاب فدود أو شراعه كي عسلانة ولا جسور هدي أو واحد يروح عسول إسكاها سمين وحي أردنا لجمو ودريدين وحي أردنا لجمو ودريدين صوم كي مرك أوفير سمحة يجري حتى تجرب ويدوبا رمضان مسوق شمس مسوقين كتجي ميس محمد سمين إسا وتكن إن عكلا وقفير سو مرك صلاة حبض بفتا هيسو صلاة مغرب سوق شو هذا ماذا كر وقادنا أي كوكو عيسو صلاة مية لقيت جيا مايا قرآن كم حكوا قرآن فرجالا أو ركبانا هذا إسباش إسكت حوالي قامتوا هذا رابط في سنة كلا قلايو
qofku dhufayska uu wax ku farfoorsan karaay laakiin waagi hore seefta iyadoo saa la isu duxdooxayo oo mindiya la isu haysto oo sidan maaratay laba xaafadood oo caruur iyo dumar ishiidayo oo isdhex galayo isleeyayo oo kale saasa waagi hore la isu leeyay wala isdhex galaya seeftii oo dan garanaynin maxay kaaga iman ba maxaa lagu leeyahay Allahu akbar dhaho salaad xiro kadibna sida ku qabato u tuko adoo cararaya adoo mid baacsanaya adoo Allahu akbar hayo mid ku dhufanaya tuko salaad niyeyso baa lagu yiri haddii salaad la cafinayo ama waajib ilaahay ku saaray la cafinayo xilliga kali ah la cafinayo xilligaas uba noqon laha madax xasuusan ba xilliga naftaada u baqaysaayo ama waran baad ka cararaysa ama seef ama xabad kugu dhacdo Soomaa misalada marka ayaan la fududaysan su'aasha aakhirana wax walba ka adag sida la socdo qodobka waxaan aad ugu adkeenayaa baraarujinteeduna ma badna dadkuna aad bay isu dhigteen dadkiina aad bay isu dhigteen baraarujinteeduna ma badna aan soo noqono wixii marka واهل ناحيه حديث عهد بالاسلام dadkaasi marka maxay sameynayaan way ijtihaadayaan واهل ناحيه حديث عهد بالاسلام waxa weeye dadan diinta wax fara badan ba ka aqoon qaabkeebay rabadaan u soo gashaaba ma yaqaanaan qaabkee rabadaan u soo gashaaba salaada qaabka loo xiro ma yaqaanaan rabadaantu qaabka u soo gasho ma yaqaanaan laakiin waxay yaqaanaan in bil rabadaan la yiraahdo la soomo maxay sameynayaan waan iska dadaalayaan oo xilliga ay yiraahdaan alla ilaahay xilligana xilligii muslimiintu soomi jireen bayaguna soomayaan kii xidhnaa muxuu sameynayaa wuu dadaali muxuu ku dadaalayaa wixii uu awoodi karayo tusaale ahaan wuxuu ogaa rabadaantu sanadkan inay ku aadayso xilli qabooba muxuu sameynayaa markaa kuleelaha markuu ka baxay qaboobaha la gaaro ayuu rabadaantiisii soomaya xilligu yiraahdo alla ilaahay ugu dhow saasun buu ijtihaad intuu sameeyo kadib marka laba qodob baa laga rabaa inuu sameeyo kow al-ijtihaad ijtihaadku waa maxay waa inuu dadaal sameeyo marka qofku marka uu sanbiye haysan oo uu safar ku jiro ama uu magaalada joogo oo uu sanbiye haysan maxaa la yiraahdaa sameeyo intaanu gogobaysi raasan biyaha ha baarbaaro inta adoon biyo baarbaarin hadaa iska gogobaysato gogobaysigaaga ka kacweeye inaad yaqiin u hubto maahan meesha inaysan biyo jirinin laakiin marba hadaad mala qabto meesha biyo laga heli karaya marka hore waa inaad biyo baadho hadaadan biyo baarin waa iska gogobaysato gogobaysigana ku ansixi maayo salaadad ku tukateena ku ansixi mayso gawaanad ku soo celiso salaadii dadaalkaas marka laga rabo marka hore waa inuu qofku wuxuu ku dadaalo wuxuu sameeyo dadaalka waxa ka mid noqon karaya ninkan xaafid quraan buu ahaa quraanka maalin walba juz buu akhrin jiray maalinkii la soo xiray buu garanaya maalin walba markaas uu ka tirsanaya soddonka juz inta soo jeer baan quraanka dhameeyay bishii intaasan soo bilaabay hadda bishaas lagu jira saasuu ku dadaal u sameeynaya afaan soma طيب taamarku sameeyo marka dadaalkii waxba u soo baxaya marka natiijo u soo baxaysa natiijadii baa marka wuxuu yiri walahu ahwaal buu leeyahay كو أن يتبين إنه وعداته له قفكي الحال أرنكي إنه وعداده بعد الاجتهاد مركو اجتهادي وجوبا سي واجب نبأه مركو اجتهاد كي واجب كهاي نصور شاقني أوقاتي أيا وحا أعداتي حلقة أوصومي حلقة أهيد بوعداتي حالته مركا يرانيا فإن سام هدو صومه أو وافق رمضان بشهر رمضان أوافقه أجزاءه وكجديه haddii ilaahayba ugu beego ijtihaadkiisii intuu sax noqdo xilligii rabadaan ahayd ay ku beegmo waxaanu leenahay way ka gudaysaa waxooga yar baa niyadiisa shaki ku jiray oo niyada markuu soomayay de jasman umaanu hubinin xilligan uu soomayay rabadaan tahay in kale inta yarna waxaanu leenahay waa afis sababtoo niyada shartigeedu waa jazmi inta yar ku soo gashayna waa afis baynu leenahay xaaladda labaadi waa in waafaqa hadduu waafaqo maa bacda ramadaan gadaasheeda hadduu waafaqo ajza'ahu waa ka gudaya wa huwa qadaa'un qalluna noqonaya walaa ithma dembina kuma laha wayaqdii wuxuu qallaynayaa yowman maalin in naqasa hadduu nuqsaamo وكان رمضان uu ahaa taaman mid dhameystiran fi ghayri shawwal marka laga reebo bisha shawwal iyo wadil xijjati bisha dil xijja marka laga reebo waaya xaalada labaad waxa suuragal ah ramadaan kadib inuu waafaqo oo xilliga markuu ijtihaaday dadaalay ay u soo baxday inay ramadaan tahay baaba waxay noqotay uu soomay xilli ka dambaysa xilligii dadku ay soomeen su'aalahan ramadaantii waa soo tagtay shawaalkii buu wuxuu u maleeyay inay ramadaantii tahay shawaalkii buu ramadaan ahaan u soomay markaa ama dul qacduuba u soomay ama muharram buu u soomay bilaha ka dambeeyay ramadaan buu soomay tayib marka koowaad waxaynu leenahay way ka gudaysaa sababtoo ah damar walba waxay u noqonaysaa qalla un weeyaan qalluhuna waa ka gudayay Soomaa marka wax dhiba male waa ka gudaysaa horta laakiin
wax dambiyana kuma laha qaluna u noqonaya waana ka gudaya warkaas waa cadiya laakiin haddii ay maalin ka nuqsaamo oo ka hadho wuxuu soo qallaynayaa maalin buu soo qallaynaya hadday 30 soomaan isaguna 29 ijtihaadkiisa uu ku soomo muxuu soo qallaynayaa maalin buu qallaynaya haddii rabadaanna 30 ahayd isna uu 29 soomo haddii ay sida kala dhacdo waxba soo qallayn maayo maalinkaasna waa iska khali dhac weeye isaga dheeraadka ku ah waay taas marka waxa weeye wixii bilaha laga reebo bisha shawaal iyo bisha dilxijja marka laga reebo معبد ذو القعدة محرم صفر ربيع الأول برها صورنا هدوس كسومه حكم كيسوا سيدا إنه شيء وقل وكجوديسا دم بلجمالها هدوم مالين كرد النيدنا وسقال لا تنوس صوميدات كنا صدق صومنا مالين بسوق الله ينيا لبض بلود بينو كريبنا لبض بلود وشوال يدو الحجة شوال وبيش صنفور رمضان بكل حكتاه يبيش حجك لبض بلود يقول وحق ديراد الله صعده وحير فين وافقه هدو وافقه شوالا بش شوال وكان شوال نوها ناقصا مدمن ورمضان تاما مدما يسترا قضاء وحو قلينيا يومين لو معلومات او كان هدوها شوال تاما مدما يسترا ورمضان ناقصا مدمن فلا قضاء قل لك مرحبا وان كان هدي اهايين تامين لبا دما يسترا او ناقصين اما لبا دمن قضاء يوم مالين بو قلينيا meeshan wax dheeraad ku jira markaa waxa dheeraadka ku jira waxa weeye bisha shawaal buu isagu soomay shawaal kowdeedii buu ka bilaabay wuuna la dhameystay ramadaan bay dadkuna soomeen xaaladaha soo bixi kara afar xaaladood weeye aqli ahaan markaynu fiirino ramadaan inay dhameystay inuu 30 ahayd isaguna uu shawaal 30 ka soomay inay ramadaan dadku 29 ka soomeen isaguna uu shawaal 29 ka soomay inay ramadaan dadku 30 ka soomeen isaguna shawaal imisa ka soomay 29 inay dadku ramadaan 29 ka soomeen isaguna shawaal ka soomay 30 ka soomay intaasaynu celcelinayna markaa waxaanu leenahay haddii dadku ramadaan 30 ay soomaan isaguna shawaal oo 30 ay soomaan shawaal oo 30 uu soomo ama naam 30 hadday wada soomaan maalin buu isagu qallaynayaa 30 hadday soomaan maalin buu qallaynayaa maalinkaasina waa maalinkee waa maalinkii ciidka weeye sababta isagu shawaal oo dhan buu soomay shawaalna waxa ka u ah maalinka ciidkana lama soomo 30kiisii shawaal maalinka ciidkii ka jar imisa u soo haray 29 baa u asaxay maxaa ka dhiman dadku 30 bay soomeene maalin baa ka dhiman maalinkaasuu soo qallaynaya haddii 29 uu isagu soomo iyaguna 29 ay soomaan ka waran waa isla sidaas oo kale sababtoo 29 ku soomay hadduu shawaal bilowgeedii ka bilaabay de maalinkii waxa ku jira ciidka 28 baa saafi u ah dadkuna 29 bay soomeen maalin baa ka dhiman isagana waay haday isdaba marto ka waran 30 bay dadku soomeen isaguna wuxuu soomay 29 bisha bilowgeedii uu ka bilaabay bisha kowdeedii uu ka bilaabay imsa laga rabo inuu qalleeyo laba cisha laga rabo inuu qalleeyo maalinkii ciidka iyo maalin uu dadkaba ka yara markii hore ilaa 30 bay dadku soomeen sida kale u dhig iyaga 29 soomay isaguna 30 buu soomay imsa laga rabo inuu qalleeyo waxba laga rabo inuu qalleeyo waa dhantay sababtoo ah 30kiisa maalinka koowaad markaanu ka jarno imsa u soo haray 29 imisa soomay 29 yana soomeen waa isku dhantay tiradaas sooma shawaalka markaa isaga inta yar baa dheeraad ku ah طيب ذو الحجة وكالي وإن وافق هدو وافقه ذا الحجة بشا ذا الحجة اللي يرى هذا هدو وافقه وكان ذا الحجة نوعها ناقصا مد لمن هدوها ورمضان تام من مد لما يسترنها قضاء وحوق لنا يا 5 أيام شن مع الموت أو مسا كان هدوها ذو الحجة بشا ذو الحجة اللي يرى هذا تام من مد لما يسترن ورمضان ناقصا مد ناقصه لمن وها قضاء وحوق لنا يا 3 أيام صدح مع الموت وإن كان هذا هاي تام مين لبد ما يسترن أو ناقصين أما لبد من قضاء 4 أيام أفر مع الموت أي وقلينا يا بشا ذو الحجة اللي يرى هذا iyadu maalmo kale oo dheeraad ah la socda oo aan la soomi karaynin dhulxijjo maalinka ciidka lama soomo ee 10 ay tahay maalinka 11ka iyo 12ka iyo 13kana lama soomo oo maxaa la yiraahdaa ayaamu tashriiq maalmaha hilba warasada waa xaraan in la soomo maalmaha imsa maalmood baan la soomi kareen marka dhulxijjo 4 maalmood tayib isagii marka uu ijtihaaday waxa u soo baxday bishan dhulxijjo la yiraahdaa inay rabadaan tahay saas uu maleeyay dhulxijjo rabadaan ka dhigtay
saasuu ku soomay sidii oo kale un baynu hadda leenahay dadku hadday rabadaankii 30 soomaan isaguna dulxija uu 30 soomo imsa ka dhiman isaga mashan ba ka dhiman misaafar ba ka dhiman afar ba ka dhiman maalinka ciidka iyo saddexda hilba wadashada ayaa mutashriiqa afartaasa ka dhiman marka afar maalmood buu soo qalaynaya haday dadku 29 soomaan isna uu 29 ka soomo dulxija waa la mid afar un baa isna markaana ka dhiman haday dadku 30kii rabadaanka soomaan isna uu dulxija 29 ka soomo maxaa ka dhiman shan baa ka dhiman afar aan la soomi karaynin iyo maalinu ka yara dadka ila dadku 30 bay soomeene sida kale haday tahay 29 haday dadku soomaan isaguna 30 soomo imisa ka dhiman saddex maalmood baa ka dhiman sababtoo ah maalinku dadka dheeraadka kala ahaa baa u gelaysa booskii maalmahan afarta ee laga jarayo saa ugeeda saddex maalmood ayaa u dhimanaanaysa taasna markaa faahfaahinteedu intaa weeyaan wuxuu yiri wa in ghalita hadduu ku gafo ku khaldamo bitaqdiimi horumarinta oo waqaca wuxuu dhacayaa naflan sunna ayuu dhacayaa wasaama wuxuu soomayaa ramadaan in adrakahu haduu soo gaaro wa illa hadii kale qadaahu wuu soo qalaynaya saddexdii laba xaaladood baynu soo marnay inuu ramadaan waafaqo iyo inuu ramadaan ka dambeeyo maxaa soo haray inuu ramadaan ba ka horeeyo halkii dadku rabadaan sugayeen buu isagu shacbaan buuba sii soomayba shacbaan buu wuxuu u maleeyay inay rabadaan tahay hadoo kale uu iska sii bilowday waxa qeyrina wax dib xagan uu ka soo bilowday isagu maxaanu leenahay markaa waxaanu leenahay bisha aad soo hormarisay waa iska sunne bisha aad soo hormarisay waa maxay waa sunna weeye rabadaan kuugu guntami mayso sababtoo ah rabadaantu waqtigii ay guntami lahayd ee ay kugu waajibi lahayd lama gaarin cibaado aan waqtigii ay waajibi lahayd la gaarinna ma dhacdo mar guntanto hadduu qofku waqtigii duhurka intuu ku ijtihaado oo waqtigii ka hor tukado hadhowna ay dib uga cadaato waqtiga tukatay waqtiga duhurka ma ahayn maxaanu leenahay de ku soo celi oo waqtigii tuka markuu yimaado kana waxaanu leenahay hadaa dadkii rabadaan ka gaadho oo aad jeelkii ka soo baxda ama ay ku cadaato rabadaan inay wali ku harsan tahay rabadaan hadaa soo gaadho dadka la soon hadaa soo gaari weydana soo qalleebaynu leenahay wuxuu yiri walaw taharra haduu ku ijtihaado li shahri nadrin bil uu nadriyay aw sawmi qadaa'in ama bil qallihiisa laga rabay oo fawaafaqa uu waafaqo ramadaan lam yasquta ma dhacaya masaladan wuxuu ka wadaa qofkani waxa lagu lahaa bil ramadaan oo qallaa baa lagu lahaa waana xiran yahay tusaale ahaan oo ma awoodo inuu muxuu ahay wax ogaado ama bil uu nadray inuu soomo baa lagu lahaa waa dadaalay wuxuu yiri markaa bil aan ramadaan ahayn soon ramadaantii buu markaa ku aaday isagoo u malaynaya inay bil kale tahay ramadaantii dadku ramadaanta ahayd buu ku aaday isagoo u malaynaya inay tusaale ahaan shacbaan oo kale tahay oo uu leeyahay bisha shacbaan qallihiis ka sii dhamaystir tuu soomayna waa ramadaan maxaynu leenahay ramadaanna waxaanaad soontay ramadaanna kaaga dhici mayso kii nadarka ahaa iyo kii qallaha ahaa toonna kaaga dhici maayaan ee labadiiba waa lagugu leeyahay ramadaantiina waa inaad qallayso bishii qallaha ahaa ee hore lagugu lahaana waa lagaa rabaa tii nadarka ahaana waa lagaa rabaa wixii dhan waa lagaa rabaa waxa ma dhicin sababtu waa maxay bishan ramadaan waqtigeeda soon kale oo dhici kara ma jiroba maalin ramadaan ah soom aan ramadaanta ahayn oo la soomi karaa ma jiro waajib ha ahaado ama sunna ha ahaado ama waajib ha ahaado hadduu hadda qof safro oo uu ramadaantii waajibka ahayd sida cudurdaar ugu helo ama uu xanuunsado oo uu ramadaantii waajibka ahayd cudurdaar ka helo oo uu yiraahdo ka waran iskaba sunna maanta sunna ahaan ba isaga niyeyso ma u gelaysaa ma u geli mayso ramadaan laba cibaado ma wada gasho sida waqtiga xajka lagu jiro laba xaj aysan wada gelin waqtiga umrada la xidho laba umra aysan wada gelin naam wa awqaada noocaas oo kala cibaadooyin kala ma galaan طيب وحيروا ألا يتبين بعضني عليكم السلام ورحمة الله هاي مسألة وإنت هرأنا وحيا هدي أعداته إن بشي رمضان حلقة أوسمية أي حلقة أهيد دب أعداته وحدي كرنسا قفك إنه اجتهاده
hadhowna ay u cadaan weydo wararta waagii aad bisha ramadaanka ahayd soontay ma ramadaantiiba ahayd miyay ka dambaysay miyay ka horreysay haddii waxba u cadaan waayaan ka waran allaa yatabayana waa inaysan u caddaanin lahu qofkii alxaalu arrinka bacda alijtihaadi dadaal markuu sameeyey kadib maxaa xukunkiisu noqonaya ajza'ahu waxaa ka gudaya maa saamahu wuxuu soomay walaa yalzamuhu kumana waajibayo shay-un wax oo hayruhu intaa ka soo hadhay wax kale kuma waajibayo maadaama waxba aysan dib ka caddaanin wuxuu yidhi waa min alasbaabi waxaa ka mid a sababyada hayri lmuctabarati aan waxba laga soo qaadaynin wax ka soo qaadka aan lahayn alru'yatu in lagu arko bisha soo gelitaankeedii fil manaami hurdo lagu arko ama alru'yatu in lagu arko fil manaami hurdo lagu arko bianna laylata caawa awalu ramadaana ramadaan bilowgeedii inay tahay nin baa seexday wuxuu yidhi nebi maxamed baanba arkay riyadaan ku arkay ama sheekh hebel baan caawa riyada ku arkay waa lay tusay waa lay birbiriyey waxaana la yidhi waa ramadaan caawa ramadaan kow weeyaan markaasuu inoo yimid waaba nin sheekhu aynu ku kalsoonnahay haddaynu doonno nebi maxamed inuu soo arkayna waa sheeganaya maxaynu leenahay ma lagu soomaya warkiisa maya lagu soomi maayo oo nebigu sala allahu calayhi wasalama sawkii yidhi qofkii riyo igu arkaa wuu i arkay ina shaytaana laa yatamathalu bi shaytaanku suurada iyo qaabka ilaahay ii sameeyey oo kale maba iska dhigi karaya shaytaanku awood wuxuu u leeyahay inuu bini aadamka sidooda kale iska dhigo haye maxamed هي وصح رؤية حقيقية ما هو ده أركتي الماء لكن أركتي النبي قال أركا ورب وأنا حق وي قف كان النبي يقول أركي وأنا حق إنه النبي أركي ما هدو أركي كم ديدنين النبي يقول كيسميها ديدن تبارك يا هي ها تمام وحنا شرع هذا لو محور منامك طيب وايه وسود ويسي شيخي ها وايه تي واحد الاعتماديه تاسع الاعتماديه يا أركتي ذا كسوما وجواب وافي لبدينا جوابات ووافي وي لكن ميل كلام كغاي ماننا waxaanu leenahay qofkani waa sax nabi maxamed uu arkay sallallahu alayhi wasallam laakiin kalsooni kuma qabno nabi maxamed wuxuu ku yiri sideedii inuu inoogu soo wariyay qofkan uu hurday Soomaa marfuucul qalam buu ahaa haduu doono riyadii barbu ilaawi marka inagu nabi maxamed inaan aragtay kama shakisanin waad aragtay haddaad sheegatay waad aragtay yalla waad aragtay nabi maxamedna shaytaan muskama dhigo laakiin inuu nabi maxamed warkiisii noo soo tabisay oo sidiisii noogu soo tabisay halkaasaan shaki ka qabnaa nabiguna sallallahu alayhi wasallam sida ay culimadu sheegan kumuusan xidhinin qofkii ku riyooda ee riyo ku soo arka waxa lagu xidha muusan odhanin taana waa mas'ala labaad tayib inta marka halkaan kaga baxno waxa jira an saddex afar mas'alo an نعم لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ساسوي جميل واساسوي دور مسألة حال كان أنكو قبل 10 كان انتين كبحين واحد عضا بشو مركا أيس رمانيسو لبها بين وحوية وي مقناتا هبين نوا مقناتا لبها بين وحكا بدنا بشو ما مقناتو بشو waxay isqarisaa oo maqnaata laba habeen ama hal habeen laba habeen wax ka badan ma maqnaato hadii ay bishu dhameystiran tahay laba habeen bay maqnaataa hadii bishu naaqis tahayna hal habeen bay maqnaataa طيب maqnaanshaha bishu ay maqnaanayso labada habeen ama habeenka ay maqnaanayso waa sida caadiga ah la yaqaano ilaahay wuxuu awoodaa sida caadiga ah inuu khilaafo oo si kala keeno sida awgeeda inaga waxa laynagu cibaadaystay ee layna faray waa bishu halka inaynu ka fiirino habeenka 9 u dhamaado bisha Shacbaan ama 9 ay dhamaato bisha Ramadaan ama bilaha kaleba halka inaynu ka fiirino qorax u dhacdaa ayaa layna faray ee aroortii halkan inaynu ka fiirsanno
bishii ma soo baxday mise ma soo bixinin layna ma farin waxoogay calaamad wax yara xoojinaysa noqon karaysa laakiin hadiiba ay dhacdo inuu qof yiraahdo bishii xalay baan halka ka arkay ama saakan halka ka arkay qof kalena inoo yimaado oo cadli ah oo marxaatigiisa aynu aqbalayno oo yiraahdo ana halkan galabta ka arkay bishii waxaanu qaadanaynaa warkiisa qofka yiraahdo galabta halkan aan ka arkay waad garateen Soomaa idan sida dhaqanka aynu naqaan ee ah bishu halkan hadii laga arko halkan laga ma arki karo waa si caado ah oo la yaqaano laakiin ilaahay waa bedeli karaya innagana waxa leenagu cibaadaystay qofka cadliga ah warkiisa inaynu qaadano qof cadli ah warka haduu inoo keeno kaliya waxa laga reebaya istixaaladii aanu soo sheegnay ee ahayd al-istihaala al-falakiyya ama al-istihaala al-mabniya ala al-hisab taan baa laga reebaya warkiisa lagu bushinaya wixii inta ka soo hadhay laguma bushin karayo midda kale badanaaba hadaanan khaldanayn dadku bisha halkan waxay ka fiiriyaan waaga kadib oo waaga kadib bay yiraahdaan waa soo baxday halkan laga ma arki karayo culimaduna kutubta waxay ku qori jireen sida maaha bishu markay leeyihiin way qarsoontaa waa habeenkii waa waaga ka hor weey waxa dhici karaysa inay waaga kadib xaggana ka soo baxdo xaggana ka soo baxdo waaga kadib xaggana ka soo baxdo xaggana ka soo baxdo habeenkii waa dhici karaysa ee markay leeyihiin habeen ama laba qarsoontaa oo aysan bishu soo bixinin waa wixii waaga ka horeeyo habeenka ah weey bal xilligii saxaabada ee waagi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu khaliifada ahaa waxa dhacday bisha taamid ka badaran in bisha halkan laga arkay maalin aroortii ku xigtay bishu kowda ahaydna halka laga arkay caawana in la arkay oo maqribkii halkan ay ka dhacaysa la arkay aroortii ku xigtana la arkay baa dhacday kadibna Umar ibn Khattab war loo qoro la yiri wax aanu la yaabnay baanu aragnay maxaanu sameeynaa markaas wuxuu yiri biluhu waa iskhil khilaafan barkoodna barka kale waa ka weyihiin oo waa ka muuqasho badan yihiin calaamadaha qiyaamu saacahana waxa ka mid intifaaxu lahilla sida awgeeda idinku bisha xagan hadaad ka aragtaan uun ku sooma hadaad xagan ku aragtaana ka afro sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri taas waa mas'alo waxaan kala baraarujinaynaa mararka qaarkood waxa dhacda bisha in aragtideeda dad lagu kalsoon yahay soo sheegaan sidaana lagu soomiyo dadka laakiin dadka badankooda iyo magaalooyin fara badan aan laga arag habeenka ku xiga markaa ayaa dadku bishi istusaan oo habeen labaadka ah markaas waxa soo baxda marka qaarkood bishiyo weyn oo la arkaa dadku marka waxa ku murmaan bishani waxa weeyaan waa bil saddexaad ama tusaalahan bishiyo yar baa soo baxda markaas waxa la bishan waa bil koowaad waxa noocaas oo kala ah habeenka dambe habeenada dambe bisha la sii fiirsanayana sharci maaha sharcigu waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam nin mii ka yimid baa u yimid nabi allah bishii baan arkay nabigu ninkan cadaaladiisu ku kalsoonaaday wuu soomay dadkana soomu yiri intaas wax lagu dhisaya hadii qof aynu ku kalsoonahay hal qof hadda marka qaarkood waxa jira in hal qof ka badan ilaa 10 qof baa laga yaabaa meel kala duwan in laga soo sheego dad wad waxa arkaysaa anigu isheeda kuma arag wadu haddaadan ishaada ku arag ishaadu de kaligeed mi arki karaysaa waxa maanic baa dhici karaya dadkan kalena waa dad cuduul ah qofkan uu hadii la taskiyeeyo حتى تسكيه كلام ما بهنا وينقل العدالة الظاهر وباهية كليه قف كان مياه واحد مفسق اللي يقال ما أهل الصلاة ومسجد كيس كنت كذا ما ها وهروك سوى لقادنا يا سوسا ما ينقررين سيدا أوجد بيشن حاجة دم بهدنا لقصي في رسالة يو ويرتها ووين تهاي وحبك متشرين وحي هار ولين لقوي وحبك متشران وحسنا يا الله دقني يدنا مسألة سوى حوية ومسألة مسألة كل حكتها ها هيا ها 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 هيا وور خلدن وي
waa war khaldan weeye warka saxan waxa weeye in la yiraahdo haye haday sidaas tahay waa la qalaynaya maalinkaasi in la yiraahdo mar hadduu qof cadli arkay war waxba inaga khaldamay waynu soo qalaynayna hana kula yaabina culimadu waa bashar weeye iyagu xukun bay hayaan sidii marba wuxuu ogaadaan cadayntu ugu soo baxday wax ku xukumayaan war dadkan waa na wareeriyeen marna waa naafurinayaan marna waa na soominayaan waxaasoo kale meesha kuma jirto waxaan waa arrin maxkamad galaysa cadayn baa la raadinaya mar baa la waayaya mar baa la helaya marba sida u dhacda loo dhigaya xukunka shariicaduna waa sida cadayntaas u dhacdo ma sidoo qofku jecel yahay waaya waxyaabaha la caadaysa waxa kamid ah la yaqaano in tajaaribta dadka qaarkood ay u cuskadaan in tajaarib lagu ogaado bisha ramadaan wana waxyaabaha malaha faa'iideyn karaya oo xoojin karaya laakiin se aan 100% wax lagu dhisi karaynin waxa kamid ah tajaaribta la yaqaano noocyo kala duwan oo tajaarib ay sheegaan tajaaribta la yaqaano waxa kamid ah culimadu waxay oran jireen khamisu ramadaan al-maadi awwal ramadaan al-aati bisha ramadaan ee tagtay maalinkay shanta ahayd baa bisha ramadaanta soo socota kow noqota قاعدة هذا في رستان بلا هذا بقى شأنه ومضطرد وحاجة مالمه تصال أهان رمضان تي هذا ينقى تكتي تيكه الرئيسي وحيجا شيء مال خميس بقش رمضان تي هذا الضعفي تيكه الرئيسي خميس بقش خميس تمحى وشن يا سنين سوما خميس يا جمعة يا سبت يا أحد ما نك كوش هذا وامحي وسنين وي رمضان تي لصور ضعفي يا حسوسته سنين بيهاي هذه قاعدة لو صعده رمضان تنصوص عتها جمعة جلسة سبت سنين محا وشنأ سنين 3 4 5 جمعة جلسة هذا الشذو الذي رمضان تطبق شأنه اسمه خلاف سنة قاعدة داس إن بدن بان إلى آد بانو طبق عليه دي بانو طبق عليه آد بيسوق أنت هذا ناس إذا سيتهاي وحول لكم رسيكره ما هو وضع شرعي ما هو وضع حوجي ما له النية رح يوجد يسأل وضع شرعي أو تي وحلو حكم يأه أما تي لجو سوم يأه معها ويا أركان الصوم صوم كأيو أركان تيسا أيو حلقا كقال وهي 3 وصدح الركن الأول ركن يكوادي النية صدح ركن به صوم كليه هاي أنت أسمعك وحي كدم بيا وحي نقول إن أحكامتي صومك يا رمضان توسك أهيد أنت كسر ريسودن سيداس رمضان الله سوقا سيدا بشكو سوقشة أنت سنوك هدلين ولا فجورين حتى إنه مركا حكامتي رسمي هيدا رمضان كي صومك إنه قلنا أركان الصوم يحيي وهي 3 وصدح الركن الأول ركن يكوادي النية والنية ويتعلق بها وحنا لحد سمية أمور الرمال لحد سمية أولا أركن كواد شروطها النية شروط ديدا أفر شرط بين النية ولا نية صومكو أفر شرط بيلاده شرط يكواد الشرط الأول الجزم وجوين وإنه قفك جزميه أو جويه أو كوكل صون هذا النية دي أساسية بري رمضان تهاي وحشكي أنا سنجلينين وناوي الصومي قفك صوم كنية سني له أحوال وحوليه حالته الحالة الأولى قفك مركز صوم كنية سنة حالة أولية حالة كوادي وأن يكون جازما إنه جويه أو كوكل صون النية ديسا فإن كان هدوية جسمه جوينتي ساسي مع عدم اعتقاده يسوق عن عقيدة سنين أن غدا برئنا يتهاي أول رمضان بشهر رمضان كوديدا أو مسا اعتقاده رمين ورميسين يهي أنه منه إنه بركم يتهاي رمضان بلا سبب الآن لكن رميسين يهي أو مسا كان الغد بريدو بأي أحد يوم الشك أي أحد لم تجزه النية نيدي كما بقوديسو وايه وحجري حالة كوالي وإنه جزميه نية جزمينته وحلا يرى هذا وإن نية ستو بريتولا وانسومية وصون وانسومية أساس وكلا طيب هذا بقى جزمي قاسي هدي جزمية قفكو إسقى أو لا رميسان بري نسر رمضان هاي وحلا هي بري رمضان معها لكن رمضان هم بنسومية أساس نية كو جزمي أو اعتقاده أنه منه بلا سبب أما وحب الرميسان هي بري ورمضان لكن وبلا سبب سبب شرعي ما هيستو سبب شرعي هين بو هيستا هدو دون وقتين وهذا الشيء إنه خامس رمضان الماضي ده أسوسك هيستا سبب شرعي كان الرؤية يوحيابين هذا الشيء إنه أسباب العامة هي أسباب الخاصة هاي طيب إذن وحو الرميسان يهبري إنه رمضان تاي لكن سبب شرعي وما هيستو أما سه بالرتدى بيوم الشك أنت أصلاً لم تجزه النية نيدي أو نيستي جازمة بها هاتئ كجودي ميسو نعم فإن حكم الحاكم بذلك هدو حاكم كسيدا حكميه إن رمضان تهي أو أمسه أخبره إنه
إنه ورهمه بالرؤية بشي إن لأركي موثوق به مدو لقو كالسونيهي في الشهادة مرقيسة أجزاءته وكقديسة ولا أثر وحر هذا أنا ماله لتردد النقنقشو أو يبقى هريا بعده أي بعد الحكم أو الإخبار. نعم كي هو مركا وحو أها قف أن وحو عسكن جزميسة كان وحو عسكن يهي حكم كي حاكم كاسواب حي بروا رمضان أما قف عدلي أو كوكل سونيها وركيسا أو ورمي بروا رمضان هادو سيدا مركا كسوما أو كجزميا نيدي ساسوا أصحيسا هادي وحير أو تردد كجتشرو تردد كاسي وحده وملها وحنا سامين وياري ميسو. نعم سببتها أصل باعتماسية فإن أخبره هادو أغور رمو بها أركتدي من ترد من العلينيو شهادته مرقيسة أجزاءته وكقديسة إن بانا هدي عداته أنه من رمضان إن رمضان كمتهاي عدي أنه نريد مرقود لما أقبل هدي كاغا ورهنتنا dadka kalena aysan ku soomin warka waxa laga yaabaa qalbigaaga waxooga yaro taraddud inuu ku jiro oo shakigaas marka wax dhiba ma laho maadaama sabab mu'tabar ah aad qaadatay niyadina waa ka asaxaysa waana ka gudaya soomkaasi. نعم حالتها سمرك وامحي وحالة الجزم. الحالة الثانية أن يكون مترددا إنه قفك يهي متردد كوحوي وقف شكسان بريتولا مصومبا مس صومها مصومبا مس صومها نيدي سي حكم كذا محن قنية فإنه وهدون يستو ليلة 30 شعبان هبينك شعبان يصدنا هيد بلا سبب الآن أنه يصوم غدا بريء سومي إن دخل رمضان ورمضان هدو سوقلو سواء قال هيدا هذا وحسكم إذا سواء وحسكم إذا أقال هيدا هذا إن كان منه هدو كم إذا هذا أم لا يسنورا وبان أي عداته منه إن كم تهي لم تجزيه كجودي ميسو قف مقرب كي مركي سرادي وتكدي أما إلى عشيه مركو تكدي يدا ولي لباربارة يدد باشر هراء سكسيحة marka iyadoo wali la baarbaarayo bishii la raadinayo leeyahay warbal meelaha hal la hubiyo ayuu iska seexday wuxuu ku seexday bari toole haday ramadaan tahay waan soomaya haday san ramadaan ahayna waa iska afuraya kadibna waxa ba dhacday inay cadaatay inay ramadaan tahay qofkaasina muxuu ku seexday niyo go'an mise niyo noqnoqonaysa ku seexday oo haday ramadaan tahayna waa soomaya haday san ahayna soomi maayo wayna dhacday ramadaan bayba noqotay maxaanu leenahay markaa soomkiisii ma ansaxayo sida awgeeda maalinka niyadiisi ma guntamayso soomkeena ka ansixi maayo waa inuu soo qalleeyo markaa waa inuu maalinka soo qalleeyo طيب وإنه وهدو نيستو ليلة 30 شعبان habeenkii shacbaan ay soddonka ahayd سبب وكن يستو أوجيدا كإخبار نحو صبي ilma yaro uga warramay inuu bishii arkay oo kale awgeeda صدقه أو رميستي أنه يصوم بوحن يسين سوميو غدا بري إن دخل رمضان وهدور رمضان سوقله وبان منه أين كعداته إن رمضان تهي أجزاءته وكجوديسه حليه كي هو وح سبب ما هيسن يسوقون وح سبب يوح حكم مثل أو شرعي ومعتبر هيسن بوح إسكجس حدا هدي رمضان تهي وين سومية قف كان يسوق حليه وحو أركي يعني عد وركيسها أن لو ذا قادن وقف كان مرخاتيس لا قادن علمه يرأي وقف كده مركاهاي باوشاقي حوجينا قلبي يتردد باكوشرة مركاسون نيدي مجوينا وحيري هذا بريسون نقطة سيدا لا ذا هاي ونسومية بري هذا صون نقطة بري تودي بعد علينا صون نقطي ما كان صحيح نيدي سها وكان صحيح كيهرا ما حيوقع نسيح ولا كيهرا موسى هيسن ماله اعتماد سبب شرعي واعتماد ما هيسن أو عسكده كان لكن محو هايستا سبب شرعي هو ilmahan yar u sheegay waa sabab sharci ah haduu ilmahan yar u sheegay rumaysto inuu arkay birito lagu soomi karayaa wax dhima malaha maadaama sabab sharci uu haysto isaga niyadiisa waa gudaysaa fa inta bayan haday cadaato fi suuratayn labada suura inuu soo sheegnayba annahu min shacbaan inuu ka shacbaan kamid yahay lam yasiha fardan faralahan uga ansixi mayso wasaxa nafli ahaan waa uga ansaxaysaa bi shartiga inuu soo sheegnay waa uga ansaxaysaa shartigaas muxuu ahaa ya inuu san yawm shaki ahayn haduu yawm shaki yahayna waa inuu haysto wixii u baneynaya yawm shakiga inuu soomo سين هرسو شيغني وين قال هدو يراهدو ليلة 30 رمضان هبينك اي رمضان صدن تهي الصوم غدا بريبان سوميه سواء قال وحا اسكو ميد انو يراهدو ان كان منه هدو كميد يحي ام لا وبان منه اين عداته ان كميد تهي اجزاءته وكغوديسا كاني رمضان دمادكيدي بو جوغا رمضان با دماتay 29 bay maraysa habeenkii la sugayay ciidka ee bishiisa la raadinayay ayuu isagu cishihii hoba iska sii seexday wuxuu yiri haday bari Ramadan tahayna waan soomayaa hadaysan Ramadan ahayna ma soomayo saasu waciidaya saasu markaa ku seexday cid wuxuu u sheegtay iyo wuxuu maqlay toona ma jiro
berri waxaa dhacday markaa inay rabadaan noqoto bishii la arki waayo aroortii sidaa uu ku soo toosay niyadii xalay ee aan go'nayn ee uu ku seexday rabadaantiisii ma kaga ansaxaysaa mise kaga ansixi mayso yaa way kaga ansaxaysaa waa kaga ansaxaysaa kani markaa muxuu ka duwan yahay kii shacbaan bilowgiisii joogay shacbaan bilowgiisii qofkii joogay ee cishihii iska seexday ee wax sababa aan haysan waa ka ansaxaysaa sababtu waa maxay asal buu haystaa kani waa asal raac وأصلku waa maxay de 29 maalmood oo rabadaan uu soo hayay berrina rabadaanta uu raacin laha meel berri soomkeedu rabadaan uu raaco buu haystaa laakiin soomka markuu kow yahay rabadaan uu raaco ma haysto de shacbaan oo la afuran yahay ba ka horeysay sida awgeeda niyada taradudka markuu ku jiro niyadu markaysan go'nayn ee uu ku jiro taradudka iyo noqnoqoshada haday rabadaan noqoto waan soomaya haday noqon weydana soomi maayo sida haday tahay laba jeer bay asaxdaa وهدي أي سبب شرعي هيسته سبب كشرعي ودتك عرورته كلا وكوش جايين رمضان تاي وحلا متكا إيوه هدي أصل أي راعيسه هل راع هدي لا ذهي وأصل أي عسكان يسوق رمضان صوص عتيئة صوص عديئة أي هيسته لا بد شربة وأصحية هلكا أي نكوتشوش إنه مسحارة داسي نعم حالة صغيرة دارته هلكا نكوتشوش إنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك